maareeye ku-xigeenka dekedda magaalada berbera Cumar Abukar Jaamac oo maanta qaar ka mid ah warfidiyeenada gobolka saaxil kula hadlayay xafiiskiisa magaalada berbera ayaa waxa uu maareeye ku-xigeenku beeniyay warar been abuur ah oo ay warbaahinta dalku faafiyeen kuwaasi oo sheegay in taariibayaal u dhashay wadanka Yemen ay ka soo degeen dekedda magaalada berbera waxana uu sheegay in dekedda berberi aanay ahayn deked laga taariibo iyo deked dadka taariibayaba laga soo dejiyo isagoona xusay inaanu warkaasi sal iyo raad toona lahayn warbaahintii qortayna waxa uu soo jeediyay inay ka waantoobaan wararka been abuurka ay qorayaan iskana hubsadaan waxa ay ka waramayaan waxa doonaya inaan ka hadlo warbaahinta dalka oo qaarkood ay qoreen taariibayaal Yemen ka yimi iyo barxanti soo gaaray dekedda berbero iyo taariibayaal oo Yemen ka yimi wax taariibayaal la yiraahdo dekedda berbera oo deked caalamiya oo deked international oo dekedda kaliya ee qarankeena Soomaaliland uu ku dhisan yahay uma ogolaano mana raalina kama noqono in wax sharciyada iyo qawaamiinta dalkeena iyo qaranka iyo qaramada midoobay u yaala inaan ka ogolaano taariibayaal wax la yiraahdo ma jiraan saxaafadii qortana waxa jeclay in arrinka apologies ka bixiso ka noqoto qaxootiga haddii dalku jaar kulaay nasiib hesho meel walba way gaadhaan nasiibooyinkii ka dhici jiray Soomaaliya waa xogtiin inay dalkii kastoo u xiga iyo mid shisheeyaba ay tagaan sidoo kale Cumar Abukar Jaamac maareeye ku-xigeenka dekedda berbera waxa uu ka hadlay dad uu sheegay inay dhawaan la socdeen markab ku soo xidhay dekedda magaalada berbera kuwaas oo ay tiradoodu dhanayd 32 qof waxayna u badnaayeen dad Carab ah oo u dhashay wadanka Yemen waxana uu sheegay dadkaasi in loo gudbiyay laanta socdaalka Soomaaliland mana jiraan buu yiri wax xero qaxooti galay ama dad loo diyaariyay inay galaan xerooyin qaxooti waa ka mar kale maareeye ku-xigeenka oo ka hadlaya arrimahaasi maalin dhaweyd waxa timid doon marka booha la yiraahdo marka booha dhowr iyo 3 qof siday boqolkiiba 60 Carab bay ahaayeen waxaan filayaa intii aan dagaalku cadan ka bilaabmin dad Soomaaliya oo sharcigood istay kuwan Carabta ah ama ciyaalka ah abkariishka ayaa hawshoodii ka qabsaday wax xero qaxootiga iyo hay'ad aan u diyaarinay ama loo diyaariyay oo xero qaxooti galayna ma jiro dad saanka colaadaha saadaaliyay oo ka soo horbaxay inay ahaayeen ma filaya Khalid Xasan Kharash telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.